qodobada aad ku daawan doontaan wararkeenana waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo iska diiday qorshe ay wadatay filla Soomaaliya oo ku aadan arrimaha doorashooyinka dalka qaar ka mid ah dhalinyaradii askar ahaanta lagu qaaday dalka Eritrea oo baxsaday iyo baadigoob xoog leh oo xilligan socda dagaal culus oo ka dhacay magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle iyo wararkii ugu dambeeyay khasaaraha dhimashada midda dhaawac ee dagaalkaas uu sababay dawladda Kenya oo sheegtay in Soomaaliya iyo Kenya ay ka heshiiyeen kiiska badda isla markaana wax walba lagu dhameeyay miiska wada hadallada iyo qarax lagu dilay askar Kenyaan ah oo ka dhacay gobolka Lamu ee dalka Kenya intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa wararkeena imikii aatan u diyaar garooba daawashada iyagii oo inta ka dhameystiran waa Arbaco taariikhdu ay ku beegan tahay 19 bisha May sanada 2022 hadii ay tahay markii kuugu horreysay oo soo booqatay channelkeena ha ilaawin in aad subscribe tiraahdo kadibna aad furatid calaamadda gambaleelka si ay kuu soo garaan wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca Soomaaliya iyo caalamka siina gaarsii saaxiibadaada jecel horumarka dalka adigoo ku sheer garaynaya baraha bulshada inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dalkeena dib u celin kara aynu ku bilownay qaar ka mid ah dhalinyaradii askar ahaanta lagu qaaday Eritrea ayaa baxsaday iyadoo ay socdaan baadigoob xoog leh ila wareedil lagu kalsoon yahay ay noo xaqiijiyeen dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka badan 10 ruux ay si xoog kaga baxsadeen xeradii tababarka ee dalka Eritrea kadib markii ay ka gadoodeen muddo dheer oo halka ay ku sugnaayeen dhalinyarada soo baxsada ayaa la sheegay in qaarkood ay ku geeriyoodeen jidka intii ay socdaalka soo ahaayeen halka qaar kalena ay ku dhinteen rabshado ay kala kulmeen qowmiyadda Canfarta iyadoo tiro kooban ay socdaal dhulka ku soo gaareen dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya wararka aanu helnay ayaa tilmaamay in dhalinyaradan ay soo galeen gudaha Soomaaliya balse ay jiraan iskaashi ay sameynayaan dawladaha Soomaaliya iyo Itoobiya oo lagu baadigoobayay dhalinyaradaas sidaanu ka soo xigana dad ehela qaar ka mid ah dhalinyaradaas oo soo galay gudaha Soomaaliya ayaa sheegay inay soo waceen dad ku xiran filla Soomaaliya kuwaas oo lacag u ballan qaaday si dhalinyaradaas warbaahinta aysan uga hadal uguna yimaadaan dawladda Soomaaliya waxay sidoo kale sheegeen in loo hanjabo markii ay diideen yaboohii ay sameysay dawladda Soomaaliya walina hadda ay ku jiraan baxsad ay raadinayaan xubno ka mid ah sirdoonka dalka Itoobiya filla Soomaaliya ayaa dadaal kasta waxay u mareysaa in dhalinyaradaas aysan ka hadlin warbaahinta taasi oo haddii ay dhacdo banaanka keeni doonto sirtii sanado badan la qarinayay ee ku gadaaneed dhalinyaradaas askarta ahaanta loo geeyay dalka Eritrea waalidiin badan ayaa maalmihii tagay Muqdisho waxay ka sameynayaan barnaamijyo ay ku dalbanayeen in meel loogu sheegay carruurtooda kuwaas oo ku maqan dalka Eritrea isla markaana dawladda Soomaaliya ay ugu qaaday inay noqon doonaan shaqaale ka shaqeynaya dalka Qatar laakiin arrintaas dawladda Soomaaliya ay ku beenowday kadib markii dhalinyaradaas la geeyay dalka Eritrea baaqyada waalidiinta Soomaaliyeed ka soo baxay iyo dalabkooda ayaa ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha midna uusan ka jawaabin waxaana barnaamijyadii ugu dambeeyay ee Muqdisho ka dhacay waalidiintaas loogu geystay jirdil culus mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaana u gacan qaaday waalidiintaas kuwaas oo doonay inay kala eriyaan inkastoo ay ku guuldareysteen qorshahoodii waalidiin badan oo carruurtooda loo qaaday dalka Eritrea si halkaas loogu soo tababaro ayaa ka qoostay nolosha carruurtooda maadaama ay waayeen cid jawaab sax ah ka siisa hadii ay ahaan lahaayeen madaxda dawladda Soomaaliya waxay sidoo kale ka dhawaajiyeen inay tageen xarumihii wiilashooda markii hore laga qoray markii askar ahaanta loo qaadanay kuwaas oo u soo sheegay in aysan ka warhaynin xaaladda carruurtooda iyo meesha ay ku dambeeyaan dagaal culus ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Jowhar ee caasimadda dawlad goboleedka Hirshabelle wararka aanu ka helayna caasimadda dawlad goboleedka Hirshabelle ee Jowhar ayaa waxay ku soo waramayaan in dagaal culus uu halkaas ka dhacay kaas oo la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan ila wareedil lagu kalsoon yahay ayaa inoo xaqiijiyay in dagaalkaas uu u dhaxeeyay ciidanka dawladda kuwa Hirshabelle oo isku dhinaca iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda la magac baxday Macawisleyda ee ka dagaalantay deegaano hoostaga maamulka Hirshabelle wararka aanu helayna ayaa waxay sheegayaan in maleeshiyaad tiro badan oo ka tirsan kooxda Macawisleyda ay saacadihii ugu dambeeyay soo buux dhaafiyeen duleedka magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle kuwaas oo ka yimid dhinaca xiga degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose sidoo kale wararka ayaa intaas waxay ku sii darayaan in ciidanka dawladda Soomaaliya iyo booliska maamulka Hirshabelle iyaguna ay bilaabeen in ay ka hortagaan dhaqdhaqaaqa ay wadeen kooxdaas waxaana kadib sidaas ku qarxay dagaalka u dhaxeeyay labada dhinac kaas oo hubka noocyadiisa kala duwan la isku adeegsanayay xaaladda ayaa haatan waxay tahay mid kacsan waxaana dadka deegaanka ay cabsi xoog leh ka muujinayaan in uu saameyn ballaaran ku yeesho dagaalka u dhaxeeya labada dhinac isla markaana lagu dul dagaalamayo dadka rayidka dagaalkan ayaa waxa uu daba socdaa xarig loo geystay taliyihii maleeshiyaadka Macawisleyda oo lagu magacaabay Yuusuf Macallin iyo sidoo kale 4 ka mid ah askartiisa kuwaas oo xabsiga la dhigay kadib markii la isku qabtay lacaga ay ka qaadeen gaadiidka magaalada Jowhar ayaa hore waxay ula daalaadhacisay fatahaada webiga Shabeelle uu u geystay iyo sidoo kale deegaano hoos yimaada magaalada oo webiga uu ku fatahay ra'iisul wasaare Roble ayaa iska diiday qorshe ay wadatay filla Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa uu iska riixay isku day ee madaxtooyada ku doonaysay inay ku soo farageliso howlaha la xiriira hogaaminta arrimaha doorashooyinka dalka ila wareedil lagu kalsoon yahay ayaa sheegay in ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya uu diiday soo jeedintii ka timid madaxtooyada Soomaaliya ee ahayd in Cabdi Cali Raage oo la taliyaha madaxweynaha dawladda Soomaaliya arrimaha doorashooyinka dalka lagu wareejiyay xafiiska si uu uga shaqeeyo shirka 20 bisha May ee madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada
ra'iisul wasaare Roble ayaa tallaabadii madaxtooyada wuxuu u arkay isku day saameyn loogu yeelanayo taas oo dhaawici karta kalsoonida ay ku qabaan mucaaradka iyo madaxda dawlad goboleedyada kale ee weli u arka in uu dhexdhexaad yahay ra'iisul wasaaraha ma cadda sababta ujeedka madaxtooyada Soomaaliya ay ka lahayd qorshaha Cabdi Cali Raage loogu soo darayay kooxda ra'iisul wasaaraha ha yeeshee madaxweyne Farmaajo ayaa horey waxaa loogu eedeeyay in uusan doonayn inuu fursad siiyo ra'iisul wasaaraha oo hawshiisa uu madax banneeyo tallaabada ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya uu ku diiday Cabdi Cali Raage ayaa sii xoojin karta kalsoonida ay ku qabaan midowga musharaxiinta mucaaradka oo maalmihii ugu dambeeyay taageero xoog leh u muujinayay ra'iisul wasaaraha waxaana ka mid ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo sheegay in kalsooni ay ku qabaan ra'iisul wasaaraha isla markaana loo baahan yahay in fursad la siiyo dadaalada uu wada ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa dhammaantood waxay yihiin kuwa ay ku qanacsan yihiin dawlad goboleedyada mucaaradka iyo sidoo kale dawladda Soomaaliya waxaana soo raaca xubnaha beesha caalamka kuwaas oo iyagana il gaar ah ku haya dadaalada uu wada ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxayna u ballan qaadeen in taageero aan kala go'ol lahayn ay ku siin doonaan sidii uu miiska wada hadallada iskugu keeni lahaa dawladda iyo dawlad goboleedyada isla markaana la dhameyn lahaa khilaafka ka jira arrimaha doorashooyinka si Soomaaliya markaana ay u aado doorasho xor iyo xalaal ah waxaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya xilligan u haystaa taageeradii ugu badneed uu ka haysto dhinacyada siyaasadda dalka iyo xubnaha beesha caalamka waxaan rajaynayaa inuu guul ku soo dhamaan doono kulanka u dhaxeeya madaxda dalka iyo dawlad goboleedyada warbaahinta dalka Kenya ayaa shaaca ka qaaday in Soomaaliya iyo Kenya ay heshiis ka gaareen kiiska badda warbaahinta dalka Kenya ayaa waxay sheegaysaa in Soomaaliya iyo Kenya ay gaareen heshiis ay garwadeen ka tahay dawladda Qatar kaas oo si siman ay u wadaagayaan dakhliga ka soo xarooda shidaalka iyo sidoo kale gaaska laga saarayo dhul badeedka Soomaaliya ee Kenya xilligan ay muranka gelisay wargeyska Daystar ayaa waxa uu qoray inay arkeen warqadaha heshiiskan oo dhigay saamiga ah 50 iyo 50 boqolkiiba kaas oo la rajeynayay in dhawaan lagu saxiixo magaalada Dooxa sida uu sheegay dawladda Soomaaliya weli ma aysan ka hadlin heshiiskan la sheegay ha yeeshee waxay hore u beenisay dawladda Soomaaliya in madaxweynaha dawladda Soomaaliya uu kulan arrintaas kala yeeshay madaxweynaha dalka Kenya kaas oo ka dhacay magaalada Dooxa ee dalka Qatar waxa sidoo kale ay sheegtay in kiiska badda iyo sidoo kale xiriir soo celinta Kenya ay yihiin laba kala madax bannaan dawladda Qatar ayaa saami waxay ku leedahay shirkadda shidaalka ee dalka Talyaaniga oo shidaal saamin ka samaysay xirmooyinka ku yaala dhulka muranka ee gelisay dawladda Kenya heshiiskaas oo ay la gashay dawladda Kenya xirmooyinka shidaalka ee ay ka iibsatay dawladda Qatar ayaa la rumaysan yahay in cabirkoodu uu dhan yahay 15,000 oo isku wareeg fiid ah Qatar ayaana waxay qorsheynaysaa in shidaal saamin ay ka samayso dhulkaas sanadii tagtay ha yeeshee waa ay ka laabatay qorshahaas iyadoo aanan shaacin sababaha rasmiga ee ka dambeeya Qatar ayaa 2 toddobaad ka hor waxay ku guuleystay inay soo celisay xiriirkii xumaaday ee Soomaaliya iyo Kenya dawladaha Kenya iyo Soomaaliya xilligan ma lahan wax xiriir oo wanaagsan kadib markii dawladda Qatar ay isku dayday inay soo celisay xiriirkii xumaaday ee labada dawladood ayaa haddana halkiisa uu ka bilowday dawladda Kenya ayaana qaaday tallaabooyin waaweyn oo ka dhana dawladda Soomaaliya halka dawladda Soomaaliyana ay qaaday tallaabooyin kale oo ay ku cadaadinayso dawladda Kenya xilligan ma jiro wax wada hadal oo u dhaxeeya labada dawladood ee Soomaaliya iyo Kenya laakiin waxa sii xumaanay cilaaqaadka u dhaxeeya dawladaha Kenya iyo Soomaaliya oo halkiisii ku laabtay email ka sii sareysaba madaxda dawladda Soomaaliya ayaana ku adkeysanaya qorshoodii ahaa in jaadkii Soomaaliya la keeni jiray ee dalka Kenya uu sidii shaakad ugu sii jiri doono iyadoo dawladda Kenya walaaca ugu badanna ay arrintaas ka muujinayso xilligan ma muuqato tallaabo lagu soo celin karo xiriirkii Soomaaliya iyo Kenya kaas oo xilligan meesha ka baxay isla markaana dawladaha ay kala qabaan shaki weyn oo ku aadan xiriirka labada dawladood waxaana ganacsada qaadka ee dalka Kenya xilligan ay cadaadis saarayaan madaxweynaha dalka Kenya iyagoo doonaya in mar kale Soomaaliya xiriir wanaagsan ay la yeelato dalka Kenya danta ugu weyn ee ganacsada qaadka ee dalka Kenya in la soo celiyo xiriirkii Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxay tahay in qaadkooda mar kale la keeno Soomaaliya maadaama suuqa ugu weyn ee ganacsiga ee dalka Kenya uu ahaa Soomaaliya ugu dambeyn askar ka tirsan dawladda Kenya ayaa lagu dilay weerar ka dhacay gobolka Lamu ee dalka Kenya warar dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay qarax ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Kenya saacadii ugu dambeeyay lagula eegtay gobolka xeebta Lamu ee dalka Kenya qaraxan oo ahaa miina ayaa waxaa la beegsaday kolonyo ay la socdeen ciidanka dalka Kenya xilli ay ku socdaalayeen deegaan ka tirsan gobolka Lamu ee dalka Kenya wararkan uu helayna ayaa intaas waxay ku darayaan in qaraxa kadib halkaas uu ka dhacay iskoorimaad kooban oo u dhaxeeyay ciidanka dawladda Kenya iyo al-shabaabkii weerarka ku qaaday isla markaana jidka u galay ciidanka Kenya saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka Kenya ayaa waxay xaqiijiyeen jiritaanka weerarkaas waxayna shaaciyeen in ciidamadooda ay sameeyeen iska cabin xoog leh kadib markii dagaal ay la galeen al-shabaabkii halka ku sugnaa sida ay sheegeen sidoo kale ciidamada Kenya ayaa waxay sameeyeen qaraxa kadib howlgalla ay ku baadigoobayaan kooxihii ka dambeeyay weerarkaas iyo dagaalkii cuslaa ee halkaas ka dhacay inta la xaqiijiyay waxa qaraxaas ku dhintay ugu yaraan 2 askari oo ka tirsan ciidanka Kenya halka ay ku dhaawacmeen 3 kale oo ka tirsanaa isla ciidanka Kenya kuwaas oo dhaawacyadooda loo qaaday magaalada Nairobi ee dalka Kenya al-shabaab ayaa dhankooda guulo waxay ka sheegteen weerarkaas waxayna shaaciyeen in sidoo kale ay ku soo furteen saanad military oo ay lahaayeen ciidanka Kenya ee weerarka lagu qaaday inta badan al-shabaab ayaa weerar gaadma waxay ka fuliyaan gudaha dalka Kenya waxaana khasaaraha ugu badan uu ka soo gaaraa ciidanka ammaanka ee dalka Kenya xilliyada ay socdaalka ku jiraan dawladda Kenya ayaana waxay u maar laadahay weerarada culus ee kaga imaanaya al-shabaab iyo qaraxyada ciidamada lala beegsanayo
dowladda Kenya ayaa dhowr goor waxay ka dhawaajisay inay bilaabayso qorshayaal adag oo looga hortagay weerarada al-shabaab kaga imaaday iyo dagaalada tooska waxaana dowladda Kenya ilaa iyo hadda ay maareen laada weeraradaas iyadoo qorshayaashii dowladda Kenya yihiin kuwa dhammaantood guul daraystay xilligan ciidanka Kenya ayaa waxay yihiin kuwa heegan buuxda la geliyay laakiin howlgallada ay wadaan ayaa waxay yihiin natiijo la'aan kuwa ku soo dhamaanaya waxaana meeshooda ka sii soconaya weerarada al-shabaab ay ku soo qaadaan ciidanka dowladda Kenya kuwaas oo dhibaato xoog leh ay ka soo gaarto weerarada intaasina daawadayaal waxaa ku dhan warkii oo aad ka daawanayseen